waxaan diyaar u ahay inaan la kulmo marka ugu horeeyo ay soo dhamaadaan ugu yaraan wiigan hadda maanta waa jimce beri waa jimce sabtida ka bilaamo dhexdiis maalinta ma sheegi karo laakiin marka aan jeclaa inta badan magaalada timaado anaa soo sheegi doona waxaana kula kulmi doonaa xarunta madaxtooyada waa meeshaas hadhow qofkii u guulaysta doorashada uu fariisan lahaa baliyada lafteeda ha arkeen waxaan rabaa marka inay xinka sii badiyaan si ay xafiiska ugu guulaystaan meeshaan waagi anagu aan ku tartamaynay baarlamaankuna waa la ogyahay siduu ahaa meesha dhismuhu ahaa tii aan bishii hebel kasoo guuray oo awal xarunta madaxtooyada ahaydna waa la ogyahay laakiin maanta waxaan u maleeyaa murashaxiintu waxay u bateen xafiisyada bay arkeen iyo meeshaan say u dhisanta bay arkeen marka iyadaan ku casumayaa halkaasaan isugu imaan doona haddii allaydmo waana soo dhaweynaya waana ku mahadinayaa kuwa iga horreeyay iyaguna hadalkaa yiri beesha caalamkuna ha ogaato intaas dadka reer Puntland ha ogaadeen cid la takooriya ma jirto cid walba oo nabadgelyo ka shaqeynaysa oo doorashada si xaq iyo sharci waafaqsan waa soo dhaweynaya mar haddii waqtigu soo dhawaanayo xildhibaanadina ay soo dhamaan rabaan marka u horeeya waxaan rabaa inaan u jeediyo mar kale walaalahayga beelaha iyo deegaamada madaxda dhaqanka inay inta dhiman oo aan weli waraaqahooda soo gudbin ay soo gudbiyaan waxaan kale u jeedinayaa oo u codsanayaa oo ku adkaynaya wixii khilaafa inay kusoo dhammeeyaan deegaanada si aan guddiga doorashada khilaafaad loogu soo gudbin culus hay'ad guddiga waxa la yiraahdaa guddiga ansixinta xildhibaanada oo lagu eegayo shuruudihi iyo kriteeriyada sharciga iyo dastuurka u dejiyay lagu eegayo iyo wixii khilaafa yimaadeen inay saxaan laakiin mar walba in khilaaf badan u yimaado waxaynu ku qiimaysanahay sida ugu fiican oo khilaafyada dadkeena inay ku soo xulanno hay'ad awoodda waxa iska leh deegaamada iyo beelaha iyo qoondinta kala lahaayeen